السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنت عن ونكسن كسر وهذا بودكاستين لبعض. إن شاء الله تبارك وتعالى وحن بودكاستين كفلانقين دونا. قضبك كم إذا قضب بديني هره وإنه قاعد عليك دونا فلانقين دونا السنة بالبلارين دونا. عوان كأنه وحوي هاي سيدين كرقو قاعدة حرفة دقيسية يهذا الكا. وحلا فرية متكلم معلمة هو قارسان كورجكا حمسياتهم. كسر دو بودكاستين لبعض يماني كله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Mr. Zakaria وندوه. إن شاء الله تبارك وتعالى بروح ما أنت فلانقين دونا وإنه بريري إيه دونا قضبه هره وإحنا وهر صناعيين. صح. وإحنا قصة هذا اللي واللي ممكن تشوفين اللقطة برشيدة أفر حرفات بهيد. لا بيلا بنو كلا قاضي. صح. وإحنا وراني input يا output واللقطة وحلا ده هاي اللبا side وصار وحوي input إن جالي شركة مسكحة لنا عون نقص بحيان. صح. مركا وحدو يقانا لبدن إريد أرتيدا بدنا كمبيوتر input output أدو يقانا. That's right. بس وحنا استعمالنا حرفة لأنك English كانوا استعمالنا. That's right. وي مركا وحنا لبا هاي سؤال شيناني ما دام إن ورانا input كان وحوي ودقيسي يأخرس. لبدا قدبوي. دقيسي يأخرس. Reading and listening. Yep, that's true. Okay, سؤال شينكم مركا وحنا لبا هاي سيدين أصلاً كرنا عادو أخرس يعاد دقيسي. That's a very hard Bismillah, alhamdulillah, wa kafa wa salatu wa salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Zakaria, Jum'a wa Naxon, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aadna wa mahadsantahay sida podcast kan aad u wadid, aad baan ugu faraxsanahay ardaydan waxaan rajaynayaa daawan inay ka faa'iidaystaan. The language is about habits. Waxa weeyaan in la caadaysto waa xirfad marka labaadna it's a skill. That means qof kasta baran kara. Listening and reading wuxuu u baahan tahay in waqti la siiyo. And the results of the teacher markiba lama helayo. It takes time. Arday badan baa raba inay markiba luqadda helaan, markiba inay bartaan, markiba inay yani natiijo dareemaan ay arkaan. Laakiin waqti bay qaataa. Marka waqtigaasna wuxuu u baahan ardaygu inuu caadaysto, habit samaysto. Every day at least minimum ugu yaraan 1 hour listening, 30 minutes reading. Ugu yaraan. You know, wuxuu baahan ardaygu to read 30 minutes, listen 1 hour. Minimum. Okay. Habits daily. For hal saac marka ardayga sameeyo. Yeah, hal saac dhageysiya ugu yaraan iyo 30 minutes reading ugu yaraan minimum. Marka waa saacadii badmaani kasta. Yeah, an hour and a half is not that much time. Yani qofku markuu when they're walking iyagoo lugeynaya ardayga lugeynaya marka tusaale qofka ardayga wax cuntada karinaya amba you know maybe markuu qofku baska saaran yahay haska dhageysto anytime an hour and a half minimum. Okay, way bal hadaanan English ka aqoon. Yeah. ama aanan garin waxaan dhageysanayo ma anfacaya tiro well waxa ka si fiican inaad fahmisid waxa jira dhageysi ardaygu muuqaal la socda ardaygu iska fahmiya waxa fiican inaanad wax kasta iska dhageysan waxa dhageysata wax aad fahmisid because markaad fahmisid micnihi baa ka soo saaraysa. You understand me? Okay. Then the more you understand, the easier maskaxdaada galisa. Way. Yeah. Haddaba sidee ayagu wanaagsan inaan wax u akhriyo ama wax u dhageysto? Habkee ugu wanaagsan tahay? Well, horta dadka kala duwan, dadna waxay ku bartaan dhageysi, dadna waxay ku bartaan daawasho. Everybody's different. So qofku waa inuu dib iskugu noqdo baaro yani maxaa u fudud qof ardaygaas. You understand me? Laakiin waxa ugu fiican aan waxa oran lahaa ardaygu at least inuu yani buuga markuu akhrinayo kalmado cusub meel ku qorto, meel jawi degan fadhiisto, note badan ha sameeyo. That's the best way akhriska marka laga hadlayo. Note badan ha samaysto, buuga ha ku qoro yani kalmadaha cusub ha meel ha ku calaamaysto. I think that would be helpful. Way. Yeah. Haddaba sidaan u horumari karayaa dhanka xirfadaha labadan xirfadood waa laba xirfadood two skills very counseling yeah saan samayn karaya xirfad midhadhan leh efficiency oo aad iyo anfacda saan samayn karaya talo labadan xirfadood. Okay, yani waxa ka wada reading ka iyo listening ka horumarintooda saan ku samayn karaya. Yeah, well number one reading your listening wixii qaataan like I said time bi qaataan. So ardaygu wuxuu baahan yahay inuu u samro time kaas marka ugu horeysa maybe waxa ardaygu walaga yaabo hadaa arday tahay luqadda baranaya maybe 20% ba fahmaysa then the next time waxaad fahmaysa 30% then waxa laga yaaba buildan or 1 month inaanad wax isbedel dareemin like isbedel kugu socda so you have to be patient waa inuu samartid so time bi ku dhacaysa you know. Yeah, ma oran karayna talow
marka leenahay listeningka qofkaasi ha horumariyo dhanka dhageysiga si ilmaha yar dhashay ilmaha marka luqadda baranayo badanaa sameeyay dhig maqal dhagool badan buu sameeyaa markaas uu hadla marka ma oranayna si aan hadalka u helno si aan speakingka u helno waxay ku xiran tahay inuu listening ka bato aad iyo aad isku xiran yihiin ba hadana dhageysan speaking kama imanayaba waxa ka horeeyaba waa listening waa dhageysiga ardayga inuu badiyo hadii dhageysi yani speaking kugu adeeg yahayna that means dhageysi badan oo kugu filmaad helin so you need to listen the more you listen the easier speaking will be isku xiran yihiin ba so listening is number 1. Yeah, well, you can listen podcasts, you can listen to YouTube, you can listen TV shows, you can listen to so many lectures. There are so many things what education can do. Wait, yeah. حتى لو رأي هاي قف مركو ربا إنه دقيس سمايه، أما إنه سميستو عادو حخرس ودنك إنجليش كا. وقف كاسين ربا إنه هرو مريو لو قديس إنجليش كا. بحضر اللي عقبة نوعية يا كهوري من السطر. Yeah, well عقبة بدن بكهوري منيا. A lot of challenges. Number 1 وكهوري منيا أنا لقى بينا نفهم بوحي. You know, two people are speaking, they don't understand what they're talking about. وحلقة بينه عقبة وحنقول كرا, you know, عبسيدة. Shyness, fear. Ardaygu siraado, you know, too shy. Iskuma dayo. Waxa ka hor iman kara caqabad, you know, inuu vocabulary ku yar yahay. Ardaygaas macni ku yar yahay. So, what about you? Adigu marka luqadda baransay, waa maxay caqabad adiga ka hor imi? Do you remember? Caqabadaha, way jiraan caqabad badan oo ka hor imanaya ardayga. Arday baan ahaa. Way jiraan caqabad ka hor imanaya. Waxa ka hor imanaya caqabadaha ardaygi inaanu badanaa aanu raadin dhanka mawhibadiisa u leeyahay ama dhanka uu xiisay interest ku hayo. That's true. Haddii aan dhageysto topics aan interest badan u hayo waxay keenaysaa inaan aad u xiisay lazy you're going to be bored. Okay, marka taas waxay keenaysaa inaan si horo qofka si horumar kan markuu qofku doorto topic uu xiisaynayo like haddii xiisaynaysa dhanka economiga you can listen for economic videos economic podcasts badana waxaan sameynaa akhris ama dhageysi silan oo qofkii aanu badana eegin dhankan xiisaynaya taas waa caqabadii ugu badnaa hor iman jiray oo bariga waxaan sameyn jiray video kasto ay soo baxaba inaan dhageysto waa iska dhageysanayso there is no goal waxa ujeedaan kala ma jirin no interest way su'aasha waxay leedahay haddaba labadan xirfadood ma la maaneyn karaya anoo isku soo baranaya oo israacin kara labadan xirfadood For sure. I think that is a good question because ardayga haduu yani inshallah YouTube kala dhageysanaysa dhageysigiiba horumar sameynaysa then 30 minutes akhrisa waxa laga yaabo waxa aad akhrinaysid in dhageysiga ku soo maqashay so you know especially that you know waxa daawanaysa inshallah YouTube video kalmadihiiba maqlaysa kalmadahaas laga yaabo inaad markiiba garan you go back to the reading akhriska dib ugu noqonaysa waxa arkaysa kalmadii oo visually xagaasi ka soo baxaysa waa kalmadiiba I think labada we aad we isla jaan qaadi karaan okay marka oran kareena talow haday saa tahay labada la isku xiri karayo ardaygii waxa muhiim ah inuu badanaa sameeyo topic isku xidhiidha markaan dhageysi sameynayna dhageysto topic ka hadlay routine ko kale ana akhriyo markaan akhrin routine koormaya topic isku mid ah yeah for sure hadii topic isku mid yihiin wixii ka caawinaysa yani in wixii is dhisaan topic yani hada tusaale ka akhrinaysid economics ama traveling ama safar oo kale you know and then how do you dhageysatid of course it makes it more interesting I think personally you know anu waxaan arkay ardayga wixii xiisaynaya luqadda markiiba u barta you just got to spend time in front of the language when luqadda ku jirtid be in the language every day be in the language isku day inaad yeah find that qof ku hadla waa inaad heshid you know that's number 1 dad ku hadla inaad isku day inaad heshid haddaanad helina isku day inaad yani dhagahayna gashatid luqadda inaad dhageysanaysid every day isku day inaad yani isticmaalisid xaga ka horanaysid you know waa mahadsantahay you could say thank you try to use the language every day as much as possible that's good ma jiraan talow abis ama website ka caawinaya qofka inuu Englishkiisa labadan xirfadoodan maanta aan eegayno ka caawinaya qofka inuu horumarin karo Allah there are so many websites waxa kugu fududba inaad Google marka gashidba you just waxaad gelin kartaa English conversation you know waxaad arkaysaa so many conversations you know on YouTube ba gelin kartaa you know ka ku bilow anu waxaan la ardayga inuu ku bilaabo just
English conversations are very easy. Okay. Then waxa ku xiga ardaygu inuu isku dayo wuxuu xiiseyn inuu daawado on YouTube, on Google, dhegeysan karaa. That's true. Yeah, so just type in tusaalada football xiiseynaysid kubadda. Waxaan arkay arday dhegeysanaya football English bay ku dhegeysanayaan. Then kalmad bay weydiinayaan. Maxaa laga wadaa waxaas. So you can find the topic you're interested in. labadan xirfadood ku horumari topic xiiseynaysa. Topic xiiseynaysa ku horumari. Okay, great. That's it. Hana ka baqan. Arday badan way yara baqanayaan, way ku hadlaan waxaan ka arday badan oo dhawaaq fiican. They speak good English, pronunciation-koodu fiican yahay, laakiin way baqanayaan. They're scared. marka tolo maxaa keenaya? Wallahi, I asked myself that question. Mar walba waan isweydiiyay maxaa keenay cabsidaas. I guess waxa weeyaan in qofku wuxuu ka baqanaya, inay yani khalad sameeyaan. way san xalin karayna. Hadhoona lagu qaslaa or something. san xalin karayna. Isku day waa inuu u bareero. Try. Bud la dhac luqadan. luqadani maaha luqadayni hooyo ardayda mar walba on sheega. Just try. Saxan ba khalad ku hadal. Waa lagu qaslaya. waxaan aad u xasuustaa motivation samayn jirtay. The try is the best. Try your best. Do your best. Absolutely. isku dayga. Isku dayun. Marka ugu horeysa lagu la yaabay si khaldan ugu dhawaaqday kalmad khaldan adeegsatid. Don't worry. Okay. Don't stop. Ha joojinin. See down luqada. That's what you got to do. Just try. marba ha eegin dhanka qalabaadka waa halkii motivation ke. Ha eegin ba. Qalabaadka. Haba u joogsan ba. Okay. Just keep going. Hadhow waa lagu saxi doonaa. That's great. Will help you out. That's great. Yeah, for sure. way waxaa jira badanaa markaan sameynayo dhegeysi. marka dhanka dhegeysiga listening markaan sameynayo. accents kala duwan bay isticmaalayaan. Different accents. Yes. si marka qofkii ugu tacalluqi karaya ama uu oran karaya accentkaas aniga si ku xun labada accent badan really it doesn't matter, runtii muhiim maaha. يعني accent ku ardaygu fahmiyo baa muhiima. Haddaa British accent fahmisid kaa dhegeyson, haddaa American accent fahmisid kaa ku dayo dhegeyson. It really doesn't matter. waa isku mid luqadii waa luqadun, maganas waa lahjadun. Waa sida imika qof degan Muqdisho وكل لهجة دوين قف دقن هرجيسو كل. They're just different accents. وصومالي they speak the same language, لكن just لهجة دون بكل دوين. كتشعش هاي حلو. كتشعش هاي قف مد بالله قروح بدن قف قبل يرجع هاي وفرود. كحوق ساعة كلامنا قد كساربة. أنا واحد تجي إنجليز كمرة بنت تجي. waxaan yara fahmi waayey marmarka qaarkood markii hadlayaan luqadda lahjadooda way yara boobsiyaan ma garanaysaa oo you got waxbay oranayaan ma fahmiyo. Then markan u fiirsaday waxaan arkay kalmado badan waa isku mid laakiin si kale ugu dhawaaqayaan. It doesn't really matter laakiin way ku fahmiyaan. muhiim oo lagu fahmo waxa muhiim in lagu fahmo iyo inaad fahantiid waxa dhegeyso. waxa ka sii mis waxaasoo dhan waa in kalsooni heshido isku daydin hadashadu saxan ba khalad. Just try to speak your best. If they understand you, if they don't understand you, as long as you are trying and practicing and using the language every day from day one. ardayda wax theory baa loo galaa, theory baa loo bilaabaa luqadda sidan horta waxaasa lagu bilaabaya horta base waxaasa way fiicantahay laakiin day one isku dayna hadashad. This is a microphone. This is the tree, the plants. This is my watch. This is my jacket. Just try to speak. marka la joogo dhanka akhriska. marka beach aan akhrinayaa. beachkaas intaad oran karaysaa qofkii. waxaan u akhrinayo inuu fahmo. muhiimad intee leeg bay leedahay. That's a good question. At least 90%. Walkiiba 90 book baa soo qaadanaysaa. buuggaas aad akhrinaysid you should understand 90%. waa boqolkiiba 90 inaad fahmisid. haddaan fahmin bedel buugga. level ka yar hoose doora. Because haddii imika boqolkiiba konton u fahmisid wixii micnihii yani ma fahmisid wixii ma dhadhaminaysid kuma macaanaanayso waa iska daynaysa way kugu adkaanaysaa. Just give up. War bay noqonaysaa. waxaa jira barnaamijyo badanna aad ku beeri kartid ood yani horumarka akhriska kaa caawinaya sida automatic English college-kaasoo kale aad online bay ku dhigaan. macallimiintu way kaa caawin karaan xagga akhriska markaad yani live classka lasoo galo ardayga wuxuu arkaya shaashadii deetana macallinkii ku dhawaaqaya ardayga la oranaya ku dhawaaq maqlayo muuqaal casharo dhegeysiya. barnaamijyadaasna ardayga ha ku biiro in my opinion. waxaan ku weydiin lahaa dhanka markaan joogno automatic American English, automatic American English. Yes sir. sidee talow labadan xirfadood ardayda uga dhistaa? That's a good question. intaana horta su'aasha ka bilaabin arday badan baa weydiisa macallin always waxaa tahay automatic maxay automatic maxaa ugu dartaa. horta
anigu meeshan kusoo koray dadku waxay ugu dhawaaqaan automatic, waxay ugu dhawaaqayaan automatic. waa sida ugu dhawaaqaan waa just waa lahjadoon magaranaysaa waa sidaas ugu dhawaaqayaan so waxay automaticna magacaas waxa weeyaan wax يعني maaha robot iyo machine arday waxay moodayaan robot iyo machine waxa weeyaan wax dabiici ah si iskeed u socda naturally without too much يعني pressure iyo stress iyo buuq iyo wax soo xifdiday iyo you know just qofka inuu luqadda u barto si dabiici sida uu bartay luqadiisi koowaad natural easy marka baby oo kala tahay marka luqadda baranaysid automatic baa u baratay you know what I mean qofna mu oran kaalay aan ku adoo baby kaalay aan ku dhigay naxwada hooyada inta ku soo fadhiisato kaalay hooyo maanta waxaan baranaynaa simple present tense. I don't think inuu jiro qof Soomaaliya oo weligiis bartay simple hooyadiis u dhigtay simple present tense. Isagoo Soomaali maxaa lagu yiraahdaa simple present tense ba? You know what I mean? Amba the you know past perfect tense. What my past perfect tense is Somali. Okay. Nobody knows يعني نحوdaas oo kale Soomaali inta badan ma bartaan. Maybe a few people are bartaan dad yar common. So muxuu qofka isku wareerinayaba maxaa keenay waaye marka la joogo dhanka iskuulada in ardayda aad culays lagu saaro dhanka grammarka waxa weeyaan sababta waxa weeyaan grammarka waa advanced level you know that's true so marka qof so meel sare laga bilaabaya horta qofku waa inuu yara galo luqadii yara taabto yara magaranaysa isticmaalo try to use the language a little bit يعني wix marka familiar noqdo يعني luqadii in badan isticmaalo يعني wixii uu noqdo wax dabiici ah oo iska يعني uu fahmiyo marka ha barto waxaan arkay carruur yar oo 5 jira iskuulkii soo galayaan xagan magaranaysa Hargeysa waxaan arkay carruur yar iskuulkii bilaabayaan inanka yar 5 jirka already Somali uu ku hadlaya speaks perfect Somali markaas loo bilaabaya bataja haduu ku hadlaya he speaks perfect Somali waxa la dhisayaa laga yaabaa dhig writing writing laga dhisayaa at that point supportive for writing writing is a different story writing haduu ardigu writing haduu ka waro like first speaking perfectly hadda waxa qoraysa maskaxda ka imanayaan so you got to speak right marka aan joogno xageena college-ka marka college-ka joogno labadan xirfadood waxaan horumar karnaa su'aashiidan soo noqday marka this is a good question so when you're at the college number 1 waxa jira 4 walba dhigaysi baa la sameeyaa college-ka listening sheeko tusaale ereyadii wiiga la soo bartay ayaa la soo qaadanaya sheeka laga sameeyaa ardaygu waa inuu dhigaysto isaguna sheeka ka sameeyo that's listening practice number 1 every Wednesday we're listening usually or Saturday depending on the class marka sabti waba amba arba'a waba you know xaga danka akhriskana ardaygii wuxuu sheekadii ayuu akhrinaya okay in the book the PDF slides you know sheekadii buu akhrinaya wuxuu marka macallinkii uu maqlaya macallinkii ku dhawaaqaya so kalmadii baa u fududaanaysa yani erigii ku dhawaaqaya halkaas asaas lagu horumarinayaa marka la joogo absolutely marka waxaan la wadaagaynaa dhalinyarada hadday aad u xiiseynayaan inay kusoo biiraan college-ka inay la soo xidhiidhaan dhanka registration administration-ka halkaas oo aad ku helaysaan offline iyo online ba offline and online offline is coming soon too from the in the Souk area for imakan inshallah I hope Nairobi soon but imaka Hargeysa waa bishara kale wayna soo korodhay dhanka suuqa hadii badan ba suuqa waxay doonayaan suuqa kan inshallah maybe January February inshallah so it's in Gargaar area by the way meesha aaga gargaar dhakhtarka gargaar xagaas laga furiya inshallah waxaan ku weydiin lahaa ama jiraan su'aalaha ardayna soo weydiiyaan waxa jira videogeeni hore rasuulkeeni hore waxa jira arday su'aal naga soo weydiiyay dhanka YouTube-ka dhanka Facebook-ka that's good waxaan soo qaadan doonaa marka su'aalihiisa isku xirnay ama isku ururinay marka waxaan yara sameeyay inaan list ku sameeyay deedna isku ururina su'aalaha isku tacaluqa very good ardayga la raado dhanka YouTube-ka naga soo weydiiyay waxa maxamed Cismaan wuxuu yiri Maxamuud assalaamu calaykum Maxamuud halkaas aynu ka salaarnay sideen u saxi karaa dhanka dhawaaqa dhanka dhawaaqa waa waxyaabaha ugu adagba advanced skill wayaan dhawaaqa pronunciation-ku anigu waxaan oran lahaa wuxuu macallinkayga ii sheegayba waxa weeyaan yani dhawaaqa qofku waa inuu copy ku sameeyo maanta haddaad wax daawanaysid oo aragtid film amba wax video daawanaysid oo qofka videoga ku jira wuxuu leeyahay tusaale example ahaan wuxuu leeyahay police baskoolad haysto kale wuxuu leeyahay stop drop the gun put the gun on the floor put the gun down waa inuu isku dayid sidooda iyo magaranaysa inuu isku exactly siduu yiri inuu tiraahdo
Wala lagu qoslaya marka hore ma garanaysaa. It's funny. waan marka qofku sameeyo Try, copy. Okay. Maanta hadda maqashid qof oranaya hello, how are you? Adiguna isku dayde. Hello, how are you? You know, the copy garay oo ku dayo marka hore waa lagu la yaabay because lahjada imika Soomaali hadaan hayn luqadda si kala uga hadalna Englishka marka haddaad si ka duwan ugu hadashid way kula yara yaabaan anu marka luqadda English ku hadlo way la yara yaabaan ilaa macna luqadda waa yara waalasaya okay well haddaan 27 sano joogay Mareykanka si kale ugu hadlaan pronunciation kaliin waa ka duwan yahay yeah it's different pronunciation way marka hadda qasab ma tahay in qofku uu soo pronunciation ka isagoo aan luqad wali ku hadlin horta way caawinaysaa carabka inuu qofka markii hore saxo inuu sameeyo hadii kale hadhow yaraad kanaysa inuu bad isbedelo magaalada change marka inta hore la qabto la yara qabto isku dayo try su'aasha labadu inuu raacino hayd waqti inta leeg way ku qaadanaysaa way hatta tahay horta su'aasha ma jecliban like sababta waxa weeyaan because dadka kala duwan haddaan iraahdo you know waxa ku baran kartaa 6 months 1 year waa been you know some people 6 months ku baran some 1 year like luqadda waxa weeyaan wax aan dhamaanen it doesn't change it doesn't end you know can we say it depends on you it depends on you okay it depends on you adiga kugu xiran tahay because waxay ku xiran tahay waqti inta lag baa gelinaysaa that's true waxay ku xiran tahay quality-ga dhageysigaaga iyo akhriskaaga inta lag baa dhageysta arday baa yiraahdo macna anigu iga go'an tahay luqadda waxaan rabaa inaan barto one dadaala waxay yiraahdaa okay how much time baa gelisaa inta lag baa gelinaysaa waxay yiraahdaa macna anu ma akhriyaba laakiin ma akhridida waxaad doonaysaa in luqadda baratina ma dhageystidna how is that even possible you know it takes anu waxaan at least give it every day 1 to 2 hours waxa kugu filan 6 months in fluency gaadid yani inaad adiguna lagu fahmi adiguna wax fahmisid 6 months yeah dhageysiyo every day practice samaysid 6 months is enough inaad baahidaada ku yani ku dabartid arday labad ba jira dhanka Facebook all right what's his name soo wadiiyay Maxamed Shariif halka marka Maxamed Shariif salaam alaykum I know Maxamed Shariif I think so maybe waxa uu waa maxay wadada ugu fudud aan ku baran karno dhanka luqadda hore nagu soo hadalay laakiin tib yaro just waxa isku day luqadda galon go inside hareeraha istaagin start below isku day inuu ku hadashid maanta da baratid kalmad tusaale waxa baranaysa how's it going how are you maanta isticmaal how's it going how are you markiiba ku dhaqaaq isticmaal oo ku amal maxamed waxaan filayaa su'aal wad inuu soo raaciyay caqabad kala haysata what's that caqabada sax weeye markuu hadlayo he forget waxa uu ilaawa badan vocabulary suuta lagu xasuusan karaa so erigi buu iloobiyaa speaker ku sameeyna sax waxaan kala tiro caqabada horta eriga hadda qortid maskaxdaada way xasuusanaysaa I think waa la daraasayba qofka wax qora wuu kasii badan yahay inuu xasuusto erigii buu xasuusanayaa in badan laakiin haddaana qorin laga yaaba inay ilowdid so tip waxa weeyaan isku day inaad qortid sida indhahaaga u arkay maskaxdaada u gasho wixii waxa gacantaada ku qortid laga yaaba inaanad iloobin laakiin haddaad iska baratid ood you know laga yaaba inaad can we say use active call use the active call process and wixii ka caawinaysaana yani inaad wixii isticmaashay arday labaad ba jiray isagoo inaga soo wadiiyay dhanka Xasan Baahir waxaan sameynaa ardayda isku ururna dadana isku tacalluqan su'aalo naga jawaabo Xasan ma sha Allah su'aasha waxa uu ardaygani waxa uu aad u daawadaa jacayl ogaadana Xasan xaq ardayda degan soo raacin lahayn aad halkan marka salaanay ma Xasan sorry go ahead waxa uu leeyahay dhanka daawashada ka waran ما يعاون كريسا إن اللغة دي أنكور مركريو like films هادو فيلم يهاي حلال oo de dhaqan wanaagsan leeyahay qaar ba dhaqan waalan jira kuwaas iskalaale laakiin I think aruntii maaragtay markii uu ku bartaan luqadda just watching wax bay daawanayaan wixii bay soo celinayaan so daawashada in time qofku uu sameeyo waa muhiim you know inuu because wixii arkaya erigi iyo ficilkiisa la socda how about documentary films amazing wali hada xiisaynaysid aqoon qof ka aqoon le do you have a favorite one adu mention qaar xiisaysid documentaries illa had wali dhanka dhaqaalahan badan aad aan ugu sii isticmaala barka economics films way halkaas ya documentary films qurux badan oo waxa soo dhiganaysa lagu soo koobay gabigiisa nice way marka jira ardayda waxaan sheegi lahaa also waxa jira YouTube channel leeyahay learn English with movies YouTube qofka galin kara learn English with movies dadna waxay soo qaadayaan waxa arkay clip bay soo qaadayaan dadna
ku soo celcelinayaan so dhawaaqa kale uu fiican yahay clipkii iyo pronunciation sidoo kale ardaygu wuxuu ka arki karaa filim uu rabo inuu daawado kale because waxay soo qaadayaan 100 videos filmaan kala duwan marka qofkii clip ka soo yara jarjarayaan filmaan kala duwan dadina ardaygu wuxuu oran karaa oh I like that one comment I like this one you know way marka dhanka movieska waxa badan dhaca inuu ardaygu saddex skills ku qaadan karayo watching reading listening that's right waayo markuu leeyahay subtitles waxnaya wala fahmaya usraanaya way saddexda arday badana su'aaluhu ku soo ururin ardayda ma sha Allah soo dhaweeyna saddexda arday way su'aasha ugu dambaysa aan ku soo xidhayno barnaamijkan wuxuu yahay waa talo inta ugu badan talayna ku soo xidhnaa yes sir talo nuuciya si leeyahay ardayda baranaysa dhanka luqadda markay aad rabtid inay horumariyaan labadan xirfadood ugu horeeya luqadda barashadeeda be confident you know in naftaada ku kalsooni qabtid and just be yourself and isku day inaad yani adigu sida ugu hadalhayd ugu isku dayin yani qof haddaad isku dayday noqotid qof kale you know it's a problem laakiin haddaad isticmaashid luqadda wixii aad garanaysid bas isticmaal imanka soo dayaan wixii aad garanaysid wixii aad garanaysid isku dayna isticmaashidun arday badan wax badan bay garanayaan laakiin ma isticmaalayaan they're not using it marka wixii baa noqonaya way iloobayaan if you don't use it you lose it that's a big problem man you know marka waa isticmaal luqad isticmaal use it use luqadda waa ma cilmi hore u sheegtay sama waa qalab waa skill waa wax la isticmaalayo laakiin hadda qalabka xagaas ku kaydis sidoo ku yaalo iyo grammarkiisa iyo wixiisi there is no benefit ma waxba kama faa'iideysan use it debate ku gal ma xasta berigi debate gal jirta adigu aad baan xasuusta ma isticmaal jirtay yani badan xag in aad u jeclaa debate wuxuu keenayaa wax aad ugu si jeclaa waxay ahayd waxa kamid ahaa inaad sameyn jirtay title bad qori jirtaan oo ku soo talagelin ciwaanka surprise waxa uu keenayay inaan isticmaalo in our own words maskaxdayda markaa inaan curino ana qasab noqoto waxa nooga shakiysaa maalintii aad debate la samaysay adigu iyo like 30 people kaliga yeah I think the topic wuxuu ahaa dumar buu ku saabsanaa malaha waxa xasuusta nooga sheekay debatekaas waxa ahaa kulli topicaas wuxuu ka warramayay badan waxaan aad u jeclaano inaan hadlo luqadda marka luqadda baranay luqadda barashadeeda ilaa hadan ku jecel barashadeeda luqadda ma dhamaato ma dhamaanayso mar walba horumar buu ku samaysan improvement ku samaysan waxay ahayd taas haddaan xasuusto maalmaha kamid ah title ku xaawan jeclahay ma guursan lahayd hablaha ajaanibta iyo hablaha Soomaaliya kadib ardaydu waxay u bateen dhanka Soomaalida aan waxaan rabaa inaan hadlo in badan inaan sameeyaan u baahanahay waayo ujeedka ugu weyn inaan hadlo luqadda inaan ku hadlo aan ka baqan manaan eegi jirna dhanka grammatical wrongiska waxyaabaha qaladaadka grammarka ay keenay man eegi jirna because waxaan arday baranay luqadii taas markaa waxay noqotay inaan noqdo keligay iyo ardaydii kale inay su'aalaha igu bataan ama aan helo aan waqti badan u helay inaan luqadii ku hadlo oo istifaaco difaac badan aan sameeyo qasab bay noqon markaa luqadii marka xaga dhibidku aad buu wacan yahay eriyadii mi jiraan eriyo yani maskaxda ku jira laakiin ma soo saari kari wayday like ويستاجين لكن واحد سميني بواحد سمعني شري بدل ما كل بس واحد استعمال قامها body language body language كاسمعنا صح مرك الله small كل صبدير ولا كذا مسمعنا صح مرك الله معناه بنسى وايو مرة بين سوسي ارتي حقف فهمي ده نحق وكل شيء كريم على قفك لكن هو اسقط ده شيء واحد قريم ودي يمكن وينو بيج ويد سام ده نتري قفك ده كل فهمها واحد كودا بيج كودا صح هو صحيح قفك that's true that's very true مرك body language كذا استعمال شري كل اللغة maato absolutely balse wuxuu u baahan tahay ku dhex jir iyo joogtay ma baahan taas aad muhiim u ah waxaan ku oran lahaa qodobka ugu dambeeya aan raacin lahaa bishaaradan college wuxuu ku yaalay offline kiisu dadka saacadiin Pakistan xagga dambe saacadiin ku yaalay waxaan soo guri doonaa biidillah tabaaraka taala dhanka suuqa gaar ahaan dhakhtarka gargaaragtiisa إن شاء الله تبارك وتعالى coming soon will be very soon حاجة فيسبوك أرديد كلاس عن كران بإذن الله كويس شو جمع جالده هرجيسة ميلها كلام إن شاء الله step by step ونقدر إن شاء الله هذا أرديد شو جنا different city مجال كله online كsystem كonline كأد بو في عين هاي واحد أركي معلمين في عم بديجسة system في عم بيكون سعودان yeah so I would recommend it كمان لنا لو قد كم إحنا offline online no عليك كوحر أنت it's up to you this year إن شاء الله تبارك وتعالى بركاستينا ما أنت تسنوجي هاي وحان دك عصانين أنا تكون حناتان سؤالها تعيشهن إلى سكوسو قرطان لك كومنتيجا إن شاء الله معنا كين بدن بين سوري صندوقنا yes sir thank you Zakaria I appreciate your time جزاك الله خير thank you so much you got to watch the free